Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre uu ku gacan seeray dalab ay u soo gudbiyeen odayaasha dhaqanka beelaha magaalooyinka Gurceel iyo Dhuusamareeb. Odayaashan ayaa magaalooyinkaasi waxa ay kaga soo horjeesteen 30kii xildhibaan ee dowladda federaalk ee Soomaaliya u ballan qaaday Ahlusunna wal Jamaaca inay ku yeelanayaan maamulka cusub ee laga yeeglayo Galmudug, kuwaas oo Ahlusunna la sheegay in ay ku bixin doonaan habbeeleed. Odayaasha ayaa ra'iisul wasaaraha ka dalbaday in xildhibaanada ka soo galaya maamulkaasi aan lagala tashan urur gooni ah, balse lagu soo xulo hab waafaqsan nidaam awood qaybsiyeed oo beelaha kala duwan ah oo ay odayaasha ay soo xulaan. Ra'iisul wasaaraha ayaa sida xogta aan ku helayna diiday dalabka odayaasha, isagoo ku adkaystay in xukuumaddiisa isticmaalaysa farsamo kasta oo lagu dhisi karo Galmudug oo loo dhan yahay. Odayaasha dhaqanka magaalooyinka Gurceel iyo Dhuusamareeb ayaa iyaguna waxay ka bidiyadsan yihiin rabitaanka Xasan Cali Khayre oo ah in xildhibaanada maamulka Galmudug ka soo galaya magaalooyinka Dhuusamareeb iyo sidoo kale Gurceel lagu qanciyo Ahlusunna wal Jamaaca. Dalabka odayaasha ayaa ku soo aadaya iyada oo shalay uu soo yeeray war sheegaya in madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre faray in Ahlusunna lagu qanciyo 30 xildhibaan oo ay ku yeelanayaan maamulka cusub ee Galmudug.